ciyaarta finalka ah ee tartanka horyaalka kubadda cagta degmada Balcad ayaa lagu qabtay garoonka weyn ee degmada. ciyaartan oo ahayd mid xiiso leh ayaa waxa uu soo daawasho tagay dadweyne tiro badan iyadoona ciyaarta finalka ah ay u dhaxaysay naadiyada Star FC iyo Dekedaha FC oo isugu soo haray finalka tartanka horyaalka kubadda cagta degmada Balcad. waxaana ciyaartan finalka ah ee dhex martay labadaas naadi ay ku soo idlaatay 3 gool iyo 1 gool. naadiga Dekedaha FC ayaa 3 gool oo mid rigooro ahayd ka dhaliyay dhigooda naadiga Star FC, halka naadiga Star ay dhaliyeen 1 gool, sidaasina looga badiyay ciyaartii finalka ahayd ee u dhaxaysay labadaas naadi. waxaana koobka tartanka horyaalka kubadda cagta degmada Balcad sidaas ku hanatay naadiga Dekedaha FC. wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Xildhibaan Axmed Bariise Xaydar, wasiirka dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Hirshabelle Mudane Abuukar Xasan Abuukar iyo maamulka degmada Balcad oo warkacayo gudoomiyaha degmada Qaasim Cali Nuur Furdug ayaa ka qayb galay xiritaanka tartanka horyaalka kubadda cagta ee degmada Balcad, iyagoona koobka guddoonsiiyay naadiga Dekedaha oo 3 gool iyo 1 kaga badiyay naadiga Star FC, halka naadiyada kale ee galay kaalimahana ay guddoonsiiyeen abaalmarinadooda. ugu horeyn ayaa waxaa madasha ka hadlay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle Axmed Bariise Xaydar. ciyaartii ka socotay oo run ahaantii ciyaar aan loo kala harin ahayd. guushu banoonigu waa cad iyo madow. guusha kooxda qaaday hambalyaan leeyahay. kooxda laga guuleystay ayana way dadaashay, semifinal ay timid. ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Balcad Mudane Qaasim Cali Nuur Furdug iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cumar Faradheere oo si wadajir ah u soo xiray tartankan ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray naadiga Dekedaha FC ee koobka ku guuleysatay. 20ka oo ay naga baajiyay karoonihii koobkaas oo ay finaalka isugu yimideen kooxda waa Bari Star iyo kooxda Dekedaha FC. maanta waxaa koobka ku guuleysatay kooxda Dekedaha FC. waa ugu hambalyeynaa guuleysashadooda. waxaa kale oo hambalyeynaa kooxda laga guuleystay oo aan leenahay hadii la guuleysanay ka guuleystay, hadii idin kala guuleysan waa guuleysatay. tartankan uu ahaa tartankii ugu wanaagsanaa ee laga qabto degmada, maadaama uu ahaa tartan ka yimideen naadiyalka ilaa iyo tuulooyinka. waxaa loo qabtay waa 22 kooxood. maantan wuxuu ahaa finaalkiisa. alxamdulillah waxaa iskugu soo baxeen Dekeda iyo Star. maanta waxaa halkaas ku guuleysatay naadiga Dekeda. waxaanu leenahay weli ciyaaraha way isdaba yaalaan. Axmed Maxamed Shukuur Axmed Socdaal, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Balcad.